nin tijaar ah oo u dhashay waddanka Britain oo sanado kadib ogaaday in uusan dhalin sadex carruur ah oo ay xaaskiisa u haysay. Richard Mason oo ah 54 jir meel fiican ka gaaray ganacsiga islamarkaana wax ka aas-aasay barta internetka ee loo yaqaano moneysupermarket.com ayaa sheegay in markii uu dhakhtarka warkaa u sheegay uu dareemay sida qof duba lala dhacay oo kale, balse arrinta ugu naxdinta badnayd ayaa ahayd in saddexda carruurta ah ee ay u haysay xaaskiisii hore ee lagu magacaabi jiray Kate aanu isagu dhalin. Dhakhtarka ayaa ii sheegay in dhammaan ragga qaba xanuunka cystic fibrosis ay yihiin kuwa oo ay aad u adag tahay in ay aabba noqdaan, ayuu tijaarkaasi u sheegay saxaafadda mar ay arrintaasi weydiisay. Richard Mason ayaa dhakhtarka taranka qaabilsan u tegey kadib markii ay muddo uur u yeelan weyday gabadha ay hadda wada joogaan ee lagu magacaabo Emma, sidaa ayaana lagu ogaaday in uu qabo xanuunkaasi. tijaarkan ayaa markii uu ogaaday in aanu waxba dhali karin waxa uu su'aalo weydiiyey xaaskiisii hore ee Kate, taasoo ay kala tageen sanadkii 2007 kadib 20 sano oo ay qoys ahaayeen. waxay u sheegtay saddexda canug ee kala ah laba mataano ah oo Ed iyo John la kala yiraahdo oo 19 jir ah iyo William oo 23 jir ah in uu isaga dhalay, balse waxaa taa beenisay baaritaan DNA-ga ah oo ilmaha lagu sameeyey. kadib ayaa Richard Mason waxa uu maxkamad la tiigsaday xaaskiisii hore ee Kate, waxaana bishii November ee sanadkii hore ay ogolaatay in ay bixiso magdhow gaaraya $320,000 oo dollarka Mareykanka ah. furitaankeedii ayaa waxay hore uga qaadatay lacag gaaraysa $5 milyan oo dollarka Mareykanka, balse garsooraha maxkamadda ayaa ogolaaday Kate in ay qariso haybta ninka ka dhalay saddexda carruurta ah. sheekadan oo ah sheeko dheer ayaa Mason waxa ay ku noqotay mid cajaa'ib ah. ma aysan doonayn in ay magacowdo aabbaha dhabta ah, sababtana ma ogi, waana taa sababta ay u ogolaatay in ay magdhow bixiso, maadaama haddii ay sidaas samayso aan looga baahnayn in ay shaaciso magaca aabbaha dhabta ah ee dhalay carruurta. sidaa waxaa yidhi Roger Taylor oo ah qareenka Mason oo la hadlay wargeyska Daily Telegraph. Mason ayaa rumaysan in carruurta mustaqbalka ay ogaan doonaan ninka dhalay, taasina ay u sahli doonto in isaguna uu ogaado.